السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka anaga daawanaysan waa Lilmuhas media marka maanta waxa soo wada fadhiisanay waxa waa wax naga yaabiyay maanta marti inoo وعبسنا magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho magacii maamuuska leh cagadaha soo dhawow waan dhawahay waan salaamayaa teamka ku xiran YouTube kan Lilmuhas media للمهاس ميديا عربكيga iska culus yaa leeyahay waan ku dhawahay waan idin salaamay waxaan leeyahay Ramadaan kariim Ramadaan insha Allah alxamdulillah aan cibaadaysano insha Allah idin way soo dhawdaan oo diyaar garowno waan ka soo salaamantiin Ramadaan hadoo bilaado oo marayo 3 idina inta ka jirta diyaar ka xiga baatan bari dambe ka xigta waxa idin leenahay xil walba ay ku tahay wanaagsan maanta waxa soo wada fadhiisan maanta inaan ka wada hadalno 29 ka dhagaxay soo dhici doono waxa la dhahaa 29 ka April dhagaxa soo dhacaya ana horta been baan mooday mid baa idin sheegay habeen nooda Twitter-ka Donald Trump ku aragnay isagoo soo dhigay dhagaxin soo dhici doono oo wadamada macnaha ugu awood weyn la caalamka ay ku mashquulsan yihiin Mareykankuna gacan la xad ka qaadan doono soo isaga xakameyn lahaa been baa laakiin moodayno oday waxaan moodaynaa inuu inta soo kabaday iska soo qoray wallahi billahi hooyo baan ku marka waxaad leedahay Donald Trump baa sheegay Donald Trump markii been baan moodayay horta adduunkan waa la tagay casriid waxyaabo qalab iyo waxa lagu tagay sax cirka iska dhaafay xataa dhulku wixii ka soo bixi doona la sheegayaa waa yaab cagadaha waa adoo kugu horeenayo lacala waaya dhagaxaas oo soo dhaca 29 ku soo dhici raba maxaa ku bargaraamsan بسم الله الرحمن الرحيم horta waa program iyaale bala horta waa cabsaday wuxuu dhagax yar u maleeyay waxa tahay dabaq Muqdisho u weyn raasay biyaanada hoos ka gala asla zaago badbaado marka dhagax Muqdisho lacag wallahi meel looga carraayo hadii la ilaahay hadana gobol hebel ku soo beegan yahay meesha ku beegan yahay ilaa hada lama ogo hada meesha ku beegan yahay leela horta meeshaas qof istaagi lahaa iska saacada ma joogi lahayn wallahi la arla ku dhaagiri waxa dhacday ana waqtigaas xaaftii ba daacuun ba xanuunka ugu badan oo ku dhici jiray muslimiinta daacuun buu ahaa moogtahay marka daacuunkii marka khalaafad waxa hayay xilka xukunka Umar bin Khattab daacuunkii baa dhacay marka xalalka Umar bin Khattab alaabtiisa gurto ordaysa waxa kula asxaabta qaar kamid ah Umar waxa geed ordaysa ma xanuunka Ilaahay keenay baad ka hortay suuri Ilaahay wuxuu keenay ka ordaya Ilaahay baan ka ordaya Ilaahay wuxuu keenay ka ordaya ma oran laha Ilaahay baan ka ordaya marka amanay ninkan magaalada Muqdisho dabaqa uga adag ugu nagu maaray shufsan oo raadsan ahaantii hadda hadaay marka tiri dhagax baa soo dhicinayo maskaxda si jira u diray dhagax raadsad yani darbi raadsad dhagax macna guriga ugu weyn dabaqa ugu weyn Muqdisho sarjina u diray sarjina u diray horta Ilaahay waa raxiim kooda Ilaahay horta waa qafuur raxiim kooda amana aan ku bargaraansan ana xaafadaha bula gaskan tigay gaskan la dhahaa xaafadaha masaakiinta laakiin laba masaakiinta Ilaahay iyaga naxariistooda ila ku fakataartaa miya aynu kuwa masaakiin kuwa kibreew geeya dhagaxa macquul kuwa la biraha iyo jiro maahan qarji qod buu soo marayaa qarji qod riyaa arkay horta meesha la dhado qarji qod waliga ima maqal inta la Ethiopia li baxtiga Ethiopia aniga ma tagay Ethiopia ma dadka laga koraysa amanay no way Ethiopia ma dadka laga koraysa amanay horta waxaan waa qarji qod soo marayaa baan ku rahaa adoo riwaayad jilaayo oo xanuunka muxuu ahaay oo nin xanuunsanaa ku jilay adii wiil kale xanuunsanaa jilay cudurka ninka uu ku dhacay aad dhahday muxuu ahaa cudurkaas magaciisa noogu celibad duray duraygaas marka maxaa lagala jeedaa ereygaas durayga hergab
ha xoolaha ma ku dhacay mise dadku ku dhacay dadku dhaca arxada kooda waa maasantiin asxaabta marka hadda taas ka soo laabano cagadaha buuxo eray oo hadda kor maskaxdiisa oo galiyo oo weydiinaya hadda taa ku soo laabto dhinaceega bidix waxa joogto Leila oo dad badan ay wada ka saayaan xabada ugu shidan gobolka Banaadir cagadaha baa aragtay magaalada Muqdisho dabaqa ugu adag xabada ugu shidan Muqdisho dabaqa ugu adag oo cagadaha raadsaday shubka raadinaa hay adigana maxaa ku qorshay islaamna waxay raadsatay meesha ma aragtay masaakiinta fulkaskas ayna bolboklo gaaraysan doonay ani meelo ku baraatay meesha ku inta ka qalan hada waxa soo socda maqlo sax meesha ku halale meesha fadhiya ku qalan lahay sababta dhagax weyn yahay dalo dhuumana xaawata ilaa imika horta ilaa imika cid ubtay ma jirto dhagaxan uu imanayo horta mis dhaaday haday qalasho xaawata ka meesha surantahay geeskeeda laga dhigi lahaa leele taa ku dhigi lahaa ay way qalashay sanada dhinto wadi halkaas liibu dhajinay sababta aabsiino laana buktaniidabo ee baba kakteey shumeka horta khiyaar aniga horta magaca yeelada horta aniga dhinacayga aniga hadda safkaanay maraysaa dhagaxa soo soco 29 April soo dhici doono hadii maxaa kaaga qorsheysan maxaa igu qorsheysan doon ina lacala ku celisa oo tiri lacala hadii laho doon ina qaato badda Indian Ocean tago badda kale bark marka dhaxda aan maraya meeshina ku doonsado lacala kugu dhac horta badda waa lagu baahan marko badda oo ku soo dhac dhagaxaas biyaha ma kala farjinayo wad raaci lahaa banaanka ku soo fadhiga biyaha raaci banaanka ku soo dhaca banaanka ku soo dhac ونني قبل كعب والله يا ما فكرت والله meesha daa ku dhacay waa xasuustay berigi ciyaalnimada iskuulka dhigan jiray waxa la leeyahay googa cigale ma waxa lagu leeyahay waxba lagu xijsan soo furnaayay waxa lagu leeyahay albaab gaaja ko isa guriga inuu ku jirtaa baa lagu albaabka afar albaab leeyahay lagu leeyahay mid duqsi dadka cunaa jooga mid hada macaan wax ciyaalnimada isku baa wali jiray mid waxa lagu leeyahay waraaba jooga mid shinni baa joogta midna yaxaas baa jooga kee ka gal lahay gaaja way ku haysaa تحسيو أنا يا وضع أنا يا برجولي إفن حتى أو كعنا تحسي أفكي سفرت هذا ما قش حق قاسن كرا تحسي وعنا ضدك قف ضدك سكرت كل عضو كليته وقنينا دخسيجو سيريوس قف سكر كل عضو كلا دون الدعوة كمان تجا ناقش آخر ضدك سكرت قبل دخسيجو وقني معي ولا ما يا ضدك سكرت كل عضو هدي أركان كمان تناس سكرها وقنينا ضدك وبرتها ماشي سنو ضدك سكرت أنت بدن شركة ولا ما يا قلبي حلو حكوي دينا تحسي فرت يعني أفكي سفرت هذا معي ولا يا دخسوق ده أفكار ما كان قاعدة حتى هلا وقدرة كذي أنا ما قلي سافر حرت صوع نسا وقفتها عليه ما يا محل أقول سي أنا وحنكون عني بقول جاي نتقشال قاعدوني بركة كورة كسوقلا الباب كله بيجوا على هيك بركة كورة كسوقلا بعد كده هذا بعد تاسنو مسكح مركا هلو حي إذا مدينة ما أنت أنا مركا هرت هد ساك الشقة كصوب حي لحسة عملها سوق دورة صوت كذا ما أنت حك هل يعني مستحيل كصوب على واجي أصحاب ما عيال الميدي marka dugsi qof walba dugsi soo dhigtay madraso waaga dugsiga oo soo dhigtay dugsi ana jabama kulliya dugsi soo wada dhigtay dugsiyada anaga waagi horeed hadda dugsiyada hadda yani kitaab wax lagu bartaa kitaab iyo buug anaga waageena horeeto looxa wax ku soo barin jirnay kitaabka adeeg badana qalbiga isticmaal jirnay dadka casharada dheer maray kitaabada waagi horeed hadda aman لح ما كسر برتم مسكتها. البوب بنكسر كتير. هرت معنا القرآن كريم أدم سلا بدل مسجع فينا واحد كميدي هاي حلي بعنا ذا مقالة بورا ما. أدم معنا كسر ما أولي بقولوا بقول كقف نحتاج شو هو بحكي معنا كيجا. لاعب مين أنا هاي دي. لاعب. ما حكي لو تابنا لكن ما ضحك كسر تابنا. ما يا مركا أنت مركا حسبي كذا شو بقول قف بحلا قاعد ربع ترسع. لين بقول قف ما نحتاج شو. ما لو فدي سنة بقول قف. بقول قف معنا قاعد تلقوا تنو كولا بستحف صفي جري بقول قف في أتاريهن حسبيها وترينا ميا مركا. حسبيها وضاني ما يا بقول قف وضو سيج حقي سو تاجر. ما نحتاج عليه. لا بقول قف ما فاهم يعني لهاد. أنا كوشيجا. هاي. adiga waxa u socota doorasho u socota waxa loo baahan yahay 100 qofood oo adiga magaca ku codeyso exactly hadan kula haysta marka macallinkayga bade 100 qof inuu xataa u buuxiyay aad baan macallinku salaamaya oo garanaya hadii meelaha iga taado macnaha
charterka iyo systemka u yaala macnaha Puntland Somaliland marka xisbi way xisbiga markuu soo baxayo boqol qof in xisbigaas uu soo madaxa ka qofkaas madaxa qofka la dooranayo inay boqol qof u taagnaataan ha xisbigaas madaxa ka taabanaysa hadee boqol qof uu waayo wuu haray xisbigaasi ha marka amane adii buuga ku soo bartay horta tartiib baakinka gal haye aniga soo maaha aniga dadka hore ka dambeeya loo xaqsama ayda waxa ku weydiinaa marka adigoo dugsiga soo aaday subaxdii oo arkay in 10 ay qorato qad yaa ka dhamaatay marka hadda ay ka dhamaato oo arkay in 10 ay qorato maxaa sameyn jirtay wallaahi qad marka iga dhamaato macallimiintu walba dhulka ku dhigay soo xali jiray hadaan waayna qad horta hadaan waay looxyaasha hoostooda baari jiray qad waa aragtay daasadii ku jirta nin walba meel ku qarsadaan mugtahay qof walba meel ku qarsadaa qadayda hadaan waayo looxyaasha hoostooda baari jiray hadii aan waayo waxaan tumin jirnay bahal ay lilo maada lilo maya bateriga inta waayo xaq baadiyaha sheegaha geed waxa jira oo caleen waa la soo gurayaa markii la soo guro mooyo weyn lagu shubayaa dhuxulaa cagaarka qada lagu daro cagaar oo ka seenaa midna waxa waaye markii intaan qada yani looxa lagu qoran cagaarka la mariyaa may waa taas sumada waaye kan waxa waaye waa coos waa soo guray mooyaha ku shubay dhuxulaa soo qaaday ku shubay waa isku tume hadhow waa ka miire daasada ku miirnay ama caana soo qaaday caana halo ka dhex gala sug dugsiga marka tibti mooyiya ka shuma dugsigu dhex yaala dugsiga yaala ha dugsi horumar bay baxay dugsiga yaala waxa waaye hadii la waayna caana soo qaaday jilay bitqana jilayga wax lagu riixo jilayga soo qaadnay caana meesha ku shubay dhuxula soo qaadnay jilayga baal midxin baan dhahnaano horta Soomaali waa laga loo qodiga lahjadanahay ma faanta ma xadheese midxin ana maanta hadii leeyahay midxin maantiga ma soo qaban lahaa ya maanta dhan soo qaban laakiin jila hadii leeyahay lahaa adiga ku diinay marka dugsiga dhigan jirtay dugsi baan ku jirnaa maagtaan ma horta aniga aan ka soo dhamaado cagadahab qad iyo xasas soo xadi jirtay qadaas adigoo maalin soo xadayo wali ma lagu qabto والله إن بدن حتى معلم حاسوستا أنت اللي وقبتي معلم اللي ودع وي ستة اللي جوبارة وضوبة عندها اللي حري أو لح أولو دادر هذا حمر جيدا على قانا لكن ماشي حاجة أولو مجبل لها السكر حري جري أولو السكر دوبة الحاجة دوبة لورد معلمين القرآن باديها كذا يكون فرتبة حاسسنا xaasinimada wax lagu barayo waa xaasinimada anaga noqdan ahayd yani maanta hore Soomaali waxay u dhahday ninkii ma aragtay dab ku gubtada ma aragtay marka ma anaga hadaan maanta aanan nala tumin bari waxa ku tashanayna inaan nala tumin dugsiga qof dhiganayo waxa dhiganayo ma gogoynayna balooni la iska aada kubada la iska aada marka dhigan jirtay dugsiga anta oo dambeynaya moogtaa dugsiga marka dhigan ka sheekayn doona xagga dambe way baak asxaabta videoga waxta noo dheeraado iska yara rooda marka dugsiga aad dhigan jirtay horta qof dhib badan wajiga ay ka muuqataa intiga waa lagu garaaci jiray kowdhade wajiga ay ka muuqataa beendaada meen marka waxyaabii kugu adkaa oo aad samayn jirtay kugu dhibka badnaa sheeg horta waaga dugsiga aad dhigan jiray waagaasna waxaa socon jireen shaleemooyina anigan dugsigan inaa dhab usoo siya shaleemo waxaan ku ahaan jira loo 500 qalbi xabxab kushina soo raadsanaa 500 shaleemada waaye 500 waxa ku soo gadanaa loos iyo jalaato ku soo gadan jiray si xawdunayaan ku dhaafaran diican marka waxa sameyn jiray waxay tahay maalin marka shaleemooyinka qaarkood marka jimcaha ee ala furi jiray shaleemo qaarkood maalmaha caadiga way furan tahay marka dugsiga inaa dhab ah usoo siiyay waxa aaday shaleemada marka filimkee dhignaa maalkaas hadda mutuna dhignaa mutun waxaa dhignaa warda ciyaal bixu laga garnaa ka socday way wax xusuusto yaraad wala haya sheera filikaas mutuna socday filikaas marka mutun filmaantiisa markaas waaga yaraa marka loo foko ahaan jiray beentiisi kala xanta hatta dartiisa iga jabtay haye dooni sare maasha Allah marka horta taas hada usoo laabto marka
fardambihii camal anigoo filinka ka soo baxay macalinka wiilal ii soo diray afar iimaanka la lagu soo diray ii soo diray oo farqin horta saaxiibana waa ahayn marka hadda waa inta ka salaama waxa la ii soo diray wiil oo maxamed lahaa jeestool iyo wiil abta oo ahay oo xarbi lahaa hada Malaysia joogo iyo wiil kaleeto ma xasuusta hada wiilkaas kaleeto saddexdaas la soo diray anigoo shaleemada ka soo baxay oo dhinaca dugsiga adiga oo soo socda waxa isdhahay ilmaha dugsiga laga soo deeyay dhaxdar iyo ilmahan soo socdaan markii ilaahay amarkiis wajigooda waxa iiga soo sabarmay in ay qabar rabaan abuu soo baxay in ay qabar rabaan ay soo baxay marka isku dhawnahay ka dareeminay shixshix li kala bixirdan waxa sameeyay sheekada hadda kala wareeg ma aragtay kala wareegaas waa sidii عكنا واحد كذا هذا قفك مركو عادي بقيسو نف وضو قفك مركو عادي ورد هرت اسكورد ما اسكورد ما نفتوها وكبوبنا هرت معانا كاين هرت إله أنا حريصته وانت مع عبد الرزاق اللي جري صح ودكسي وكل جري حاجة سي تنات ما شاء الله كل ذاك كل جري حاجة صبر الدكسي إلى حريص انت ودع يعني ليه ما هذاش هو دعاء هرت الشيء كذا أقول ده ما ساعتها هي markaas ay bursanayeen ilaa waxa ka soo orday tanaada ka soo orday ilaa 5 geed guri hadal dhis doon meesha galay sartiya galay wiilish waa gudbeen markaas ay gudbeen xataa ma sugin waxa isdhaal cali adoo baxay kugu soo laaban karaan hal saac bar meeshaas ku jiray waa gartay ka bacdi soo baxay intii oo hal saac bar waa dhuumanaysa hal saac bar dabdiga markuu oosan oo yahay inta kala bartadana ku dhex jiray nafani ku doono ku waaye macalinka ka sahay macalinka xasido ay malaha والله هنا واد ما سنتي اصحابي اوكي مركا شيك ciyaalnimo horta cidii soo martaa soo martay ana hadda malcad markaan dhiganaya ka sheekeynaya maya ma dhiganas madarsid markaan malcado markaan dhiganaya ka sheekeynaya hadaan dhaado wala yaabay tacaay birum soo dhameyn karayo ak macalinka quraanka alkana salaamaya badan muuse gaafare aad macalin ku salaamaya jin raamala horta madarsid la iga oran jiray ya Jesu Jini raamale أعوذ بالله عندي مركا وحنا بورمدي كوتشران كمتي كسو قرا سكنتي رشق على الجوهر ابن كثير دغن دار استقام دغنيسي دار استقام بلو نجري فيديو waa dheeranay qayb insha Allah inta rabanta isla soo galgelin doona يعني هذا waxa idin leenahay horta dad channelka ku cusub tahay subscribe like share waa xaqiina maanta oo jeedin nin weyn magaalada Muqdisho magaca maamuus kula martino ahaa isigana waa aragteen salaantiisa taniya kulantiina dambe haddana waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo